This time waxaan dhisaa garaysanay laba faranti oo cusub oo hor leh oo aan horay dagaal badan looga gelin inaan ku kordhino al-shabaab kamana qarin waa u sheegnaa dagaalkaa naga dhaba waxay naga taagan tahay kala reebta makan frontigaasi saasaa la yiraa waa caqiidada iyo faithka ummadda in la tusiyo waxa ay nimankaan sheegayaan inaanay sax ahayn oo waxa saxda ay cagsiga tahay kitaabka ilaahay bay dadka ugu yeedhayaan qaalaya diintaan isku xukminaynaa diinta ilaahay kitaabka ilaahay way sooyin waliba walaysuu minhu fi shay kitaabka ay sheegayaanna walaysuu minhu fi shay wax ay ka yihiinba lama arko ayagii kitaabku yani waxba isuma ah hum fi waadin walkitaabu fi waadin shaqo iskuma laha marka wuxuu yidhi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam man qaatalahum kaana awlaa billaahi minhu qofkii la dagaalama nimankaa oo laaya ayaa ilaahay uga dhow naftayna iyo maalkayna ee u soo dhigteen waa niman cadaba waa niman diinta islaamka meel uga dhacay waa niman gaalaa haddana marka waxaan u taaganahay oo u daba joogaa ina meel alla meesha joogaan aan uga daba tago naf hawaay maal iyo magad waxay ugu reebeen male waxaan dadkeenu igama faqan meel bannaana saa kaga taagana waxaan u heelanahay oo qarku igu jira inaan markaas cadowga oo dalka iyo diinta ku soo duulay oo gaalada inaan la jihaad maanta geeljiriya qoryaha ka dilana shan nimo shabaab meel socoto marka la arko geeljira inta meel u galo yaa qoryaha ka dilana telefoon ay haystaan wareedha shanaa meesha soo socota inta la yiraahdo jidka loo galo yaa hadda maanta meesha taagan